hal sano ayaa ka soo wareegatay markii hoggaanka dalka uu majaraha u qabtay maxamed cabdulaahi farmaajo kaas oo la tilmaamo in uu yahay hogaamiye shacab marka loo eego taageerada baaxadda leh ee uu ka haysto shacabka Soomaaliyeed. doorashadii 8 February 2017 markii uu ku guuleystay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliyeed ay u hiiliyeen isbedelka isla markaana ay ka turjumeen rabitaanka shacabka isagoo cod dheer ku sheegay in guusha uu ka soo hooyay doorashadaasi ay tahay guul u soo hooyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay baa mahad leh oo maanta halka iskuulka ay keenay. waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbedel doonka ah kuwa codkoodii siiyay iyo kuwa aan codkoodii siinin. maanta xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan. waa bilawgii guushaan waa bilawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value ama aasaas ah inaan ammaanada dalkan u leeyahay aan u xafido. taasi waxaa ka marqaati kacay shacabka oo inta badan gobolada dalka iyo dibaddiisa ka dhigay dibadbaxyo ay ku taageerayeen guusha madaxweyne farmaajo, waxaana jiray hal ku dhigyo caan baxay oo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha sida wiil dhalinyaro ah oo reer Jowhar ah oo ku caan baxay habeenkaas magaca Arfarmaajo Igeeya kaasoo koox dhalinyaro ay ka daba jiibinayeen waa lagu geynaa. Arfarmaajo Igeeya ayaa noqday shaqaalii ugu horeeyay ee dawladda madaxweyne farmaajo dawladdiisa ka mid noqdo, waxaana haatan uu ka tirsan yahay howlwadeennada filla Soomaaliya. meelaha dabaaldegyada waaweyn ay ka dhaceen waxaa ka mid ahaa xaafadda Islii oo ka tirsan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. muddada sanadka ay jirto dawladda madaxweyne farmaajo ayaa la tilmaamay in wax badan ay u qabsoomeen sida kasbashada shacabka, bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada, soo celintii haybadii dalka marka loo eego qaadashada go'aanada masiiriga sida mowqifkii ay iska taagtay khilaafka wadamada qaliijka, korarka dakhliga dalka sida uu qabo aqoon-yahan Cabdulaahi Nuur Xaashi oo la soo shaqeeyay sirdoonkii dawladdii dhexe ee Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre kaasoo ku sugan dalka Ingiriiska. waxyaalaha aan isooran karo haddaan soo koobo way u qabsoomeen waxaa ka mid a isbeddel xagga maskaxda ah oo ku dhacay mujtamaca Soomaaliyeed oo dawladdan u arkay inay tahay dawlad halkii dawlad ay u baahnaayeen oo hankii dawladnimo ka muuqdo. isla markii waxay ku dhaqaaqeen barnaamijkii ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa isla markii bil gudaheed soo baxay يعني مثلا وزير كمالية وربحنا وصوصار وأفرق حق الدخلية كدي ربوك عن شوراتك وحصبح بحنت مشارات كشقالها يمثلنا إذا ماذا قلب كسيد قيمه هذا كالدول وحصبح تفردي هدي ربي هذا مدحويره وكنت جاي ديجانا كبير الدلكة والسئ هذا اللي هو سودوي كذا قيمه كلا يعطلنا إنه يمادو وحاديات ومر والبوا عنك قلبي جاي تعبانية وتجستي محابستي كحريت الدنيا ده بتقنا تعلده هذا ويجا لفتو الدريمي إنك استو أيسر والله هنا قرل أي شرين أي كجرين إلى ترين دولة كفكريسي وقت سنايين وحبسيدا وقت وقاركود بالسود عن أهديان عن متقنا وهم بليانيا محابستي اللي جسود داي متقنا إثيوبيا يوسيشلس يهنديا يكون ولي بروسيس كود وصعده waxaan leeyahay marka guud ahaan marka la fiiriyo sida dawladdan shacabku
soomaaliya gudaheeda looga arko iyo isbeddelka guud ee ku samaysay habkii dhaqankii dawladda ee arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxaa jira qodobo kale oo wax ku ool ah ee dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo muddada sanadkaa ay jirta ay wax ka qabatay sida hirgelinta xarumo loogu talagalay agoonta soomaaliyeed ee ay ka mid tahay kafaalo qaadidii madaxweynaha ee agoonta ay gacanta ku hayaan taliska asluubta soomaaliyeed, hirgelintii xarunta agoonta booliska soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen ciidamada booliska, safarkii madaxweynaha uu kusoo kala bixiyey gobolada dalka oo uu kasoo dhagax dhigay mashaariic kala duwan kuwaas oo haatan qaarkood dhaqangelintooda la dareemayo marka loo eego saansaanta ku aadan dhismaha dekeda Hobyo iyo qaar kale oo mashaariicdaasi ka mid ah. kaalintii ay ku lahayd dowladda heshiiskii Galmudug iyo Ahlusunna wal Jamaaca oo ay ku fashilantay dowladii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, soo celintii maamulka hawada Soomaaliya oo muddadii burburka kadib laga maamulayay dalka dibadiisa haatanna looga arimiyo Muqdisho iyo qodobo kale sida ay ula tacaashay abaarihii ku dhuftay dalka iyo gurmadkii loo fidiyey agoontii waalidiintooda ay ku geeriyoodeen xasuuqii Zoobe ka dhacay 14 Oktoobar 2017. hase ahaatee waxaa jira caqabado kale oo la soo gudboonaaday muddadaasi ay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalka ka ariminaysay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin kiiska dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, dhacdadii Bariire ee ciidamada Mareykanku shacabka ay ku laayeen, iyo weerar kale oo u muuqday weerar siyaasadeysan oo lagu qaaday guryo mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho, sida weerarkii hoyga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo weerar kale oo lagu qaaday hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. waxaan sugnaaba waa 3 sano ee nagu soo fool leh waxa u hagaaga dowladda madaxweyne Farmaajo iyo waxa ay ka habsaanto dowladda uu majaraha u hayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.